mid ka mid ah masiibooyinkii ugu foosha xumaa ee u soo joogtay bulshada reer Vietnam iyo gumaysigii saddexda dawladood ee Japan, Faransiiska iyo Mareykanka waxa soo iftiimay ilayska haliyay u badheedhay inuu hor istaago awoodahaas kana dambeeyay qorshayaashii ugu muhiimsanaa ee Mareykanka lagu jabiyay dagaalkii Vietnam. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku salaysan yahay Ho Chi Minh oo ahaa halgamaa gacanta u galiyay guusha Vietnam kana adkaaday saddex dawladood oo tamar badnaa. Ku soo dhawaada sheekada dhammaystiran. Cunto kariyihii geesiga ahaa waxa uu dhashay Ho Chi Minh sanadkii 1990kii. Abiyi waxa uu ahaa barad dugsiyeed oo ku mayal adag dhaqankiisa ilaa dawladda Faransiiska oo gumaysan jirtay Vietnam ay amar ku bixisay in luqadda Faransiiska wax lagu barto. Abiyi uu iskaga tagay mihnadiisa barannimada isaga iyo carruurtiisa oo ku soo koriyay nacabka gumaystaha. waxaana ka mid ah Ho Chi Minh oo fikradda aabihii dhaqan galiyay kana dhigtay majariyo hoggaan uu dhabadiisa hayo. Ho Chi waxa uu carruurnimadiisii bartay xirfadda dagaalka ee koonfuga iyo afka Shiinuhu ku hadlo. naciibka uu qaba gumaysta ayaa sababtay inuu ka baaqdo waxbarashadiisii dugsiyada, taasina waxay kaliftay inuu dalka Faransiiska u hayaamo sidoo aqoontiisa kor ugu qaado. markab weyn oo laga leeyahay Faransiiska ayuu cunto kariye ka noqday, dhaqaalaha ka soo galana waxa uu ku jaangoyn jiray maciishadiisa iyo waxbarashada. intii uu ku guda jiray shaqadaas waxa uu warqadaha aqoon bedelasho u gudbiyay Marsilia, balse dhammaantood waa la diiday. Ho Chi Minh waxa uu u guuray magaalada New York halkaas oo uu ka sii waday shaqadiisii cunto karinta. oo hanqaltaagidda siyaasadda waxa uu ku dhiiraday markii uu tagay Mareykanka isagoo la xidhiidhay jaaliyadaha reer Vietnam ee ku dhaqan halkaas. fikradda uu ka soo urursaday qowmiyadahaas reer Vietnam isagoo xambaarsan ayuu ku soo laabtay dalka Faransiiska. waxaanu kula kulmay xeeldheerihii shuuciga ahaa ee reer Faransiis laguna magacaabi jiray Marcel Hatchin oo baray fikradda hanti wadaagga ee dhidibada ay ku taagan tahay una hadiyaday dhowr dhigaallo uu leeyahay Vladimir Lenin. waagaas waxaa damiirka Ho Chi ku baraarugay fikradda shuuciyadda isagoo aaminay inay tahay waddada kaliya ee dadka reer Vietnam lagaga samata bixin kara masiibada haleeshay. xisbi hanti wadaag ayuu ka dhex aasaasay waddanka Faransiiska gudihiisa, halkaas ayaanu halgankiisa ka bilaabay. xisbigu waxa uu ku dhisnaa fikrad nabadgelyo aan horseedin qalalaasi iyo amni darro. magaca Ho Chi waxa uu ka soo muuqday munaasabadaha waaweyn ee shuuciyiintu ay ku qabsadaan dalka Faransiiska. maqaalo uu ku daabacay wargeysyada qaar ayaa waxa uu kaga hadlay hegardaamada ay Faransiisku kula kaceen dawladaha ay gumaystaan. ilaa uu yagleelay jariiradu xisbigiisu leeyahay laguna magacaabo Loperia oo macnaheedu yahay la ceedsade. wargeyska waxa uu kaga hadlay aafooyinka ay sababeen ciidamada Faransiiska ee gumaysanaya wadamada ay ka awood badan yihiin. inta dabadeed waxa uu ku ictimay waddanka Ruushka sanadkii 1963 si uu uga agdhawaado hogaamiyihiisii ruuxiga ah ee Vladimir Lenin. markii dambe waxa uu uga gudbay halkaas waddanka Shiinaha uu ku aasaasay dhaqdhaqaaq ka soo horjeeda gumaystaha Faransiiska ee Vietnam. inkastoo baahi weyn u qabo inuu salliga Shiinaha xaasna ugu guursaday halkaas, haddana imbaradorkii Shiinaha oo baadi goobiyay shuuciyiinta ayaa ku kalifay inuu firxad ku noqdo jasiirad lamooda Crimea ee magaalada Sevastopol. ugu dambeyntii waxa uu dib ugu laabtay magaalada Hong Kong isagoo ka bilaabay dhaqdhaqaaqiisii uu kaga soo horjeeday Faransiiska. dawladda ayaa ka cadhatay Ho Chi Minh falalka uu ka wado dalka gudihiisa, kadibna waxay u taxaabeen xabsiga. muddo sanada markii uu ku xidhnaa xabsiga Hong Kong ayaa laga sii daayay halkaas isagoo lagu amray inuu degdeg dalka uga baxo, waxaanu dib ugu noqday dalka Ruushka. markii la gaaray sanadkii 1968kii waxa dhacay waxaan la filayn. hogaamiyihii Shiinaha ayaa ka codsaday Ho Chi iyo cidda la fikradda inay kala qayb qaataan dagaalka uu kula jiro dawladda Japan. Ho Chi waxa halkaas uga soo iftiintay fursad cusub oo halgankiisa ku meel mariyo. Shiinahana waxa uu ku laabtay isagoo sitay darajada la taliyaha ciidanka qalabka sida. xilligaas waxa isbedelay magaciisii hore oo ahaa Nevoyini Kok, waxaana dhashay magaca caanka ah ee la hadda loo yaqaano Ho Chi Minh oo macnihiisu yahay ilayska ama iftiinka fallaadhaha qoraxda. geesigii haliyeyga ahaa intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka iyo duulaankii dawladda Jarmalka ee Naasiga ay ku baabiisay xoogagii Faransiiska sanadkii 1940kii. Ho Chi iyo kooxdiisu waxay u arkeen fursad ay kaga faa'iideysanayaan halgankooda dhulka Vietnamna ay ugu xoreynayaan cadowgooda Faransiiska, balse sida ay filayeen dabayshu uma ay soo dhicin. dawladda Japan ayaa qabsatay Vietnam waxaana ku dhawaaqday inay xulafo la tahay Faransiiska. halkan ayaana Ho Chi ka bilaabay halgankiisii dhabta ah isagoo ku laabtay waddankiisa hooyo. in ka badan 10,000 oo askar ayuu ciidamiyay, waxaanu afka Vietnam u bedelay xeeladihii dagaalka ee uu ku bartay afka Shiinaha. balse markii la gaaray sanadkii 1942 ayuu Shiinaha ku laabtay halkaas oo xoogagii Shiinuhu xabsiga ku xidheen sanad kale. markuu jeelka ka soo baxayna waxa uu soo noqday isagoo fikradiisu ay dhidibada ku taagan tahay. waxaanu la wareegay magaalada Hanoi oo caasimad uga dhigay dawladda uu aasaasay ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Vietnam. tanina waxay horseeday in ciidamada Faransiisku ay falal arxan daran u geystaan bulshada reer Vietnam. imbaradorkii Shiinuhuna waxa uu 200,000 oo askari ugu deeqay Faransiiska. dhabarjab weyn ayay ku noqotay arrintani Ho Chi iyo kooxdiisa.
waxaanay ku kaliftay inay saxeexaan heshiiska nabadgelyada ee Faransiisku ku maamulayo magaalada Hanoi. arrintii soo gabagabaysay gumaysigii Faransiiska ee Vietnam waxay ahayd markii ciidamadii Faransiisku ay duqeeyeen magaalada Hanoi oo maamulkeeda ku hoos jirtay. falkani waxa uu hiikiciyay qulubta bulshada Shiinaha ee aaminsan fikradda Shuuciyadda. garab muhiim ah ayaa Ho Chi Minh hogaamiyihii Sofiyeetiga iyo Embaradorkii Shiinaha ee Mao Zedong oo ugu deeqay saanad militari ciidamo gaashaaman. khasaare tiro badan ayaa Faransiiska ka soo gaadhay dagaalka sanadkii 1954 waxaanay sababtay inay iskaga baxaan dalka Vietnam. ugu dambeyntii waxay Vietnam u kala qaybsantay laba daraf oo kala ah raasamaaliyad iyo qayb Shuuciya. shaambad ku dhagan taariikhda Mareykanka. Ho Chi waxa uu xukumay qaybta waqooyiga ee Vietnam balse waxa uu markasta u ololeyn jiray in la midoobo isagoo kaashanaya saaxiibadiisa siyaasadda ee koonfurta. ugu dambeyn hogaamiyaha Vietnamta koonfureed waxa uu saxeexay heshiis horseedi doona dhimashadiisa si Mareykanku ugu hor istaagay in waqooyiga Shuuciga la midoobo. taasina waxay ku agtay in ciidamadii Mareykanku ay si arxan daran u soo weeraraan dalka Vietnam. Ho Chi taageero ciidan iyo mid hubba waxa uu ka heliyay Sofiyeetiga iyo Shiinaha ilaa guushu soo iftiintay dadka reer Vietnam hogaamiyahoodina la taag daran yahay xanuun haleelay. balse taasi kama ay joojin dagaalka uu kula jiro Mareykanka isagoo fagaaraha iyo raadiyaasha ku dhiirigelin jiray ciidanka inaanay marnaba ka waabanin waxay xaq u leeyihiin. weedhihiisuna waxay ahaayeen kuwo saameyn ku leh qulubta reer Vietnam. markii la gaadhay sanadkii 1975 Mareykanka ayaa ku guul daraystay weerarkaas guushuna waxay raacday kooxdii Ho Chi aasaasay. balse nasiib darro xilligaas taariikhiga uma uu joogin Ho Chi Minh ee waxa uu geeriyooday sanadkii 1969 si loo jirsiiyo halyeygan jiilal badan. waxa reer Vietnam ku ilaaliyeen meydkiisa gal dayactiran oo ku yaala magaalada Hanoi ee uu halgankiisa ka bilaabay. haddaba daawada meesleeday Soomaalidu waxay yeelan doonaan halyey naftiisa u hura ka xoreynta wadankiisa cadowga isku habar wacday. jawaabtaadu waa noo muhiim.